Ma ogtahay in Luis Suarez oo maanta loo aqoonsan yahay mid ka mid ah weeraryahanadii ugu fiicnaa taariikhda kubadda cagta uu carruurnimadiisii ku soo koray saboolnimo, murugo iyo caqabado aan la soo koobi karin? Sidee ayuu uga soo baxay duruufahaas adag una noqday xiddig ay dunidu wada taqaan? Maanta waxaan dib u milicsan doonaa noloshii carruurnimo ee Luis Suarez, halgankii, adkaysigii iyo dadaalkii uu ugu dambeyn ku gaaray xiddignimada kubadda cagta. Hase yeeshee, is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Mahadsanid. Aanu sii gudgalno muuqaalkeena bilowgii noloshiisa iyo qoyskiisii duruufaha adag ku noolaa. Luis Suarez wuxuu dhashay 24kii Janaayo sanadkii 1987 magaalada Salto ee dalka Uruguay. Wuxuu ku soo koray qoys aad u danyar ah oo ka koobnaa 7 wiil oo walaalo ah. Aabihii Rodolfo wuxuu ka shaqayn jiray warshad si uu qoyskiisa uga daboolo baahiyaha aasaasiga ah, halka hooyadii Sandra ay ahayd tiirka qoyska. Waxay si hagar la'aan ah u maamuli jirtay howlaha qoyska, iyadoo dadaal joogto ah iyo jacayl aan kala go' lahayn ku bixin jirtay korinta iyo daryeelka carruurteeda. Noloshoodu ma ahayn mid sahlan. Marar badan, helitaanka cunto ku filan iyo daboolidda baahiyaha maalinlaha ah waxay ahayd caqabad weyn. Dhaqaalaha qoysku aad buu u koobnaa, taasoo ka dhigtay in Luis Suarez uu carruurnimadiisii la kulmo dhibaatooyin iyo rafaad badan. Si kastaba ha ahaatee, duruufahaas adag ma aysan wiiqin riyadiisa. Halkii ay niyadda ka jabin lahaayeen, waxay ku abuureen adkaysi iyo go'aan uu ku doonayay inuu noloshiisa iyo tan qoyskiisaba beddelo, isagoo adeegsanaya hibadiisa kubadda cagta. U wareegitaankii magaalada Montevideo iyo bilow cusub. Markii Luis Suarez uu jiray 7 sano, qoyskiisu waxay go'aansadeen inay u guuraan magaalada Montevideo oo ahayd caasimadda dalka Uruguay. Ujeedadoodu waxay ahayd inay helaan nolol ka wanaagsan iyo fursado shaqo oo dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee, guuritaankaasi ma uusan noqon mid sahlan, maxaa yeelay Luis Suarez wuxuu ka soo tegay saaxiibadiisii iyo deegaankii uu ku soo barbaaray ee Salto, taas oo ku reebtay murugo iyo culays nafsi ah. Markii ay gaareen magaalada Montevideo, wuxuu la kulmay jawi gebi ahaanba ka duwan kii uu horay u yaqaanay. Magaalada weyn waxay lahayd nolol degdeg badan iyo tartan adag, taasoo ku adkaysay inuu si fudud ula qabsado. Dhanka kale, xaaladda dhaqaale ee qoyskiisu ma aysan soo hagaagin sidii ay rajaynayeen. Dhibaatooyinkii nololeed ayaa sii socday, waxaana Luis Suarez uu carruurnimadiisii ku qaatay isagoo wajahaya caqabado badan. Si kastaba ha ahaatee, waayo-aragnimadaas adag ayaa dhistay adkaysigii iyo go'aankii uu mustaqbalka ugu noqon lahaa mid ka mid ah weeraryahanadii ugu waaweynaa kubadda cagta adduunka. Kaltagii waalidkiis iyo burburkii qoyska. Muddo yar kadib markii qoysku u guureen magaalada Montevideo, waxaa dhacay dhacdo si weyn u beddeshay nolosha Luis Suarez. Aabihii Rodolfo ayaa ka tagay qoyska, taasoo keentay in waalidkiis ay kala tagaan. Xilligaas, Luis Suarez wuxuu jiray qiyaastii 9 sano oo kaliya, wuxuuna si qoto dheer u dareemay murugada iyo culayska ka dhashay burburka qoyskiisa. Hooyadii Sandra ayaa kaligeed dusha u ridatay mas'uuliyadda korinta 7dooda wiil, iyadoo duruufo dhaqaale oo adag wajahaysay. Haddana waxay dadaal kasta u gashay sidii ay carruurteeda u daryeeli lahayd. Luis Suarez dhinaciisa, tagitaanka aabihii wuxuu u arkay dhaawac weyn oo qalbigiisa ku reebay raad aan sahlanayn. Xiriirkooduna muddo dheer ma uusan noqon mid wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, halkii uu quusan lahaa, dhibaatadaasi waxay ku abuurtay adkaysi iyo rabitaan xooggan oo uu ku doonayay inuu kubadda cagta uga dhigo jidka uu ku beddelo noloshiisa iyo tan qoyskiisaba. Shaqooyinkii yaryar ee uu ku caawin jiray qoyskiisa si uu u caawiyo hooyadiis iyo walaalihiis, Luis Suarez wuxuu bilaabay inuu qabto
shaqooyin yaryar isagoo weli carruur ah. Wuxuu ka shaqayn jiray waddooyinka magaalada Montevideo isagoo qaban jiray shaqooyin uu ka heli karo lacag yar si uu uga qayb qaato daboolidda baahiyaha qoyskiisa. Inkastoo shaqooyinkaas ay ahaayeen kuwo culus oo daal badan, haddana Luis Suarez ma uusan ka daalin dadaalka uu ugu jiray inuu garab istaago qoyskiisa. Maalin kasta wuxuu indhihiisa ku arkayay carruur kale oo ku nool nolol ka sahlan tiisii, kuwaas oo si caadi ah u aadi jiray dugsiga kana marnaa culayska nololeed ee isaga saarnaa. Taas beddelkeeda, isagu wuxuu bartay qiimaha shaqada, dulqaadka iyo dadaalka. Inkasta oo uu saacado badan shaqayn jiray, haddana hal riyo ayaa mar walba qalbigiisa ku jirtay, taasoo ahayd inuu maalin uu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ah oo magac weyn ku yeesha dunida. Halgankii uu ku soo maray waddooyinka Montevideo wuxuu baray qiimaha lacag kasta oo uu kasbado, wuxuuna ka dhigay qof adkaysi badan oo aan ka quusan caqabadaha nolosha. Kabo la'aantii iyo bilowgii hibadiisa, jacaylka Luis Suarez ee kubadda cagta wuxuu ka bilowday jidadkii iyo garoomadii yaryar ee uu ku soo koray. Carruurnimadiisii marar badan wuxuu kubadda ku ciyaari jiray isagoo kabo la'aan ah ama xiran kabo duug ah oo jeexjeexnaa, maadaama qoyskiisu aysan awoodin inay u iibiyaan kabo ciyaareed oo cusub. Laakiin hal shay ayaa ka weynaa saboolnimada uu la noolaa, waana hibadiisa iyo jacaylka uu u qabay kubadda cagta. Mar kasta oo uu garoonka galo, wuxuu muujin jiray xirfad iyo kalsooni ka duwan kuwii ay isku da'da ahaayeen. Markii uu ku biiray kooxdiisii carruurta, wuxuu sii watay inuu dadaal badan sameeyo. Inkastoo uusan haysan qalab ciyaareed oo dhammaystiran, haddana caqabadahaas ma aysan hor istaagin horumarkiisa. Taa beddelkeeda, waxay sii kordhiyeen go'aankiisa iyo rabitaankiisa guusha. Maalinba maalinta ka dambaysa, Luis Suarez wuxuu caddaynayay in guusha lagu gaaro dadaal iyo adkaysi ee aan lagu gaarin duruufo quman. Hibadiisa ayaa si tartiib tartiib ah u soo baxaysay, taasoo ahayd bilowgii safarkiisa uu ku noqday mid ka mid ah weeraryahanadii ugu magac weynaa kubadda cagta. Ku biiristii Academia Nacional iyo caqabadihii ugu horreeyay. Markii Luis Suarez uu gaaray da'da 14 sano, hibadiisii cajiibka ahayd ee kubadda cagta waxay u furtay albaab weyn oo mustaqbalkiisa beddelay. Waxaa loo doortay inuu ku biiro Akademiyada kooxda Nacional oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dalka Uruguay. Fursaddaasi waxay ahayd riyo u rumoweysay wiilkii saboolnimada iyo duruufaha adag ku soo koray. Laakiin jidka guushu ma uusan ahayn mid sahlan. Xilligaas, Luis Suarez wuxuu lahaa dabeecado u baahan in la saxo. Mararka qaar wuxuu ka daahi jiray tababarada, mana uusan si buuxda ugu hoggaansamin anshaxa iyo nidaamka laga filayay ciyaaryahan doonaya inuu heer sare gaaro. Arrintaasi waxay walaac ku abuurtay macallimiintii iyo maamulka kooxda. Waxaa loo sheegay in haddii uusan beddelin habdhaqankiisa iyo sida uu tababarka uga go'an yahay, uu lumin karo fursadda ugu weyn ee noloshiisa. Taasi waxay noqotay xilli go'aan adag laga rabay. Luis Suarez wuxuu fahmay in riyadiisa ay ku xirneed dadaalkiisa iyo anshaxiisa. Wuxuu doortay inuu isbeddel sameeyo, go'aankaasna wuxuu noqday mid horseeday safarkii uu ku gaaray heerka ugu sarreeya ee kubadda cagta adduunka. Jacaylkii beddelay mustaqbalkiisa. Markii Luis Suarez uu jiray qiyaastii 15 sano, wuxuu la kulmay gabar lagu magacaabo Sofía Balba. Kulankaas wuxuu noqday mid si weyn u beddelay jihadii noloshiisa. Sofía waxay siisay Luis Suarez kalsooni, dhiirigelin iyo rajo uu aad ugu baahnaa xilligaas. Waxay ku boorisay inuu rumaysto hibadiisa, isla markaana uu si dhab ah ugu dadaalo kubadda cagta iyo mustaqbalkiisa. Dhiirigelinta Sofía ayaa sababtay in Luis Suarez uu dib u eego habdhaqankiisii. Wuxuu bilaabay inuu si joogto ah u tababarto, una hoggaansamo anshaxa kooxda, kana fogaado wax kasta oo carqaladeyn kara
riyadiisa. Maalinba maalinka ka dambeysa wuxuu noqday ciyaaryahan ka go'an horumarkiisa, isagoo doonayay inuu xaqiijiyo riyadiisa isla markaana noqdo qof ay Sofia ku faanto. Luis Suarez marar badan ayuu sheegay in Sofia Bolb ay door weyn ku lahayd isbeddelkii noloshiisa. Dhiirigelinteeda iyo taageeradeedu waxay ka mid ahaayeen sababihii ugu waaweynaa ee ka caawiyay inuu ka gudbo caqabadihii carruurnimada una dhaqaaqo waddadii uu ku noqday mid ka mid ah weeraryahanadii ugu caansanaa kubadda cagta adduunka. Guuritaankii qoyska Sofia iyo go'aankii Yurub. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2003, Luis Suarez wuxuu la kulmay mid ka mid ah waqtiyadii ugu adkaa noloshiisa. Qoyska Sofia Bolb ayaa go'aansaday inay u guuraan dalka Spain, iyagoo raadinaya nolol iyo fursado ka wanaagsan tan ay ku haysteen dalka Uruguay. Warkaas wuxuu qalbajab weyn ku noqday Luis Suarez, maadaama uu dareemayay inuu ka fogaanayo qofkii dhiirigelinta iyo rajada ugu weyn u ahaa. Laakiin halkii uu quusan lahaa, wuxuu qaatay go'aan beddelay mustaqbalkiisa. Luis Suarez wuxuu naftiisa u ballan qaaday inuu si kasii adag u shaqayn doono si uu maalin uun ugu ciyaaro koox ka dhisan Yurub. Wuxuu rumaysnaa in haddii uu riyadiisa rumowdo, uu mar walba la midoobi doono Sofia. Laga bilaabo maalintaas, tababar kasta, dadaal kasta iyo ciyaar kasta wuxuu u arkayay tallaabo uu ugu sii dhowaanayo hamigiisa. Riyadii Yurub ma ahayn oo keliya himilo kubadeed, balse waxay ahayd riyo uu ku doonayay inuu dib ula midoobo qofkii beddelay noloshiisa. Go'aankaas adag ayaa noqday mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee horseeday safarkii Luis Suarez uu ugu biiray kooxaha waaweyn ee kubadda cagta Yurub. Bilowgii isbeddelka iyo safarkii adkaa ee guusha. Kadib kala fogaanshihii Sofia Bolb, Luis Suarez ma uusan quusan. Halkii uu murugada u oggolaan lahaa inay dib u dhigto riyadiisa, wuxuu u beddelay dhiirigelin iyo dadaal aan kala go' lahayn. Maalin kasta wuxuu u tababaran jiray si adag, wuxuuna garoonka ku muujin jiray karti iyo go'aan aan caadi ahayn. Muddo kadib wuxuu noqday mid ka mid ah weeraryahanada ugu wax soo saarka badan ee daayarta kooxda Nacional. Dadaalkiisa joogtada ah ayaa ugu dambeyn miro dhalay. Sanadkii 2005, isagoo 18 sano jir ah, Luis Suarez wuxuu markii ugu horeysay u saftay kooxda koowaad ee Nacional, wuxuuna door muhiim ah ka qaatay guulihii kooxda. Qaab ciyaareedkiisii geesnimada lahaa, xawaarihiisii iyo awooddiisii gool dhalinta ayaa soo jiidatay indhaha kooxo ka socday Yurub. Ugu dambeyn, kooxda Jarnin ee dalka Netherland ayaa siisay fursaddii ugu horeysay ee ugu dhaqaaqo qaaradda Yurub. Heshiiskaas ma ahayn oo keliya tallaabo uu ku horumarinayo xirfadiisa kubadda cagta, balse wuxuu sidoo kale u ahaa jidkii uu ugu dhowaan lahaa riyadiisii ahayd inuu mar kale la midoobo Sofia Bolb. Halgankii carruurnimada iyo dadaalkii sanadaha badnaa ayaa ugu dambeyn u furay albaabkii uu muddo dheer ku taamayay. Halgankii u horseeday xidignimada adduunka. Markii Luis Suarez uu u dhaqaaqay Yurub, gaar ahaan dalka Netherland, wuxuu bilaabay bog cusub oo noloshiisa iyo xirfadiisa kubadda cagta ah. Safarkaasi ma ahayn oo keliya mid uu ku xaqiijinayay riyadiisii ahayd inuu mar kale u dhowaado Sofia Bolb, oo markii dambe noqotay xaaskiisa, balse wuxuu ahaa bilowgii jidkii u horseeday inuu noqdo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu waaweyn dunida. Wuxuu ka bilaabay kooxda Jarnin, kadibna wuxuu u gudbay Ajax, Liverpool, ugu dambeynna kooxda Barcelona, halkaas oo uu ku gaaray heerkii ugu sareeyay ee kubadda cagta, isagoo noqday weeraryahan taariikh weyn ku leh ciyaarta. Laakiin gadaasha guushaas weyn waxaa jiray safar dheer oo ay ka buuxeen caqabado. Saboolnimadii carruurnimadiisa, kala tagii waalidkiis iyo maalmihii adkaa ee uu soo maray waxay noqdeen awood ku riixday inuu mar walba dadaalo oo uusan weligiis quusan. Sheekada Luis Suarez waxayna tusaysaa in daruufaha adag aysan ahayn dhammaadka riyada. Mararka qaar halganka iyo adkaysiga ayaa ah waxa abuura dadka ugu waaweyn. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg
muuqaalkeena. Intaan ku kulmi doono muuqaal kan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.